caawi halkan soo xaadiray dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam kulankani waxa uu daaran yahay ololaha wacyigelinta khatarta argagixisada ee Puntland sidaad la socotaan oo xoogaal u tihiin waddanka waxaa ka socda dagaal runtii hawl adag dawladdu ka marayso waxaana la ku soo weeraray jidinkayaga waxaana la ku soo weeraray sharaftayada waxaana la ku soo weeraray cidqigayaga waxaana la ku soo weeraray ubadkayaga iyo naagahayaga dawladda Puntland iyadoo kaashanaysa ciidankeeda geesiyada ee Puntland waxa ay ka jawaabtay weerarkii argagixisadu iyo duulaankii argagixisada ee ka yimid meelo badan oo adduunka ka mid ah waad ogtihiin wajigii afraad baa hadda bilaamaya maalin dhaweeto oo shalay aan u malaynay inay ahaydeen waa arkayseen helikobtaro dawladdu ay soo dejisay oo furimaha dagaalka ka howlgeli doona horay kuwa hore u joogay wajigii afraad baa dhici doona waxaan rajaynaynaa in ciidamada difaaca Puntland ee maantay quruxda annaga ina ka muuqata iyo sida dhexdu noogu wada xiran tahay iyaguna qayrkood rabay sida ay inay u xaragoodaan balse taa bedelkeeda noogu bedelay inay qoriga iyo booshka sitaan dhaxanta iyo kuleelka iyo xaaladda adag ee dhimashada iyo dhaawaca lehba sidii annagu aan maanta halkaan nabad ugu noolaan lahayn bay wiilasha halka u saaran yihiin marka koowaad abaalka koowaad iyo mahadda koowaad waxa iska leh ciidamada difaaca Puntland meel walba ay joogaan inta markii laga yimaado shaqadu waa labo shaqana waa furimaha shaqana waa gudaha magaalooyinka waa la socotaan argagixisadu waxay dhibaato xooggan u geysatay dadka reer Puntland gaar ahaan Boosaaso iyo Gaalkacyo dadka ku nool oo ay dadka si fool xun oo naxariis darro ah ay miidii iyo waxgaradkii iyo haldoorkii bulshada goboladaas ee Puntland ay ka laayeen dawladdu ayadoo taa ka duulaysana waad ogeydeen ciqaabtii foosha xumayd ee ahayd tii abaalkooda ahayd ee u dhigantay in si waadix ah oo aan daaha gadaashiisa ahayn saqiir iyo kabiir dadku u jeedo in loogu abaalmariyay haddaba gudaha Soomaaliya annagu ka tirsanna Soomaaliyana argagixisadu waa joogtaa ha ku kala badnaatee maanta waad la socotaan oo koonfurta Soomaaliya waxa ka taagan makhraatiyaad u tihiin barihii bulshada kala socotaan in deegaanadii raaskii madaxweynaha lagu tirinayay qoyskiisa oo hubkii iyo maalkii iyo hantidii iyo wixii magaca Soomaaliyeed lagu bixiyay gacanta loo saaray in baqacad waxa weeye afar wiil oo qaanjeer leh ay ka soo ciirsadeen taa in ay dadka reer Puntland ku dhacda ciidanka difaaca Puntland iyo dawladoodu ma ogola maxaa laga baahan yahay argagixisada iyo Puntland taariikh dheer oo aan ahayn midka maanta calmiskaad ka socda ayaa u dhaxeeyay iyagoo magac kala huwan baynin tutuugi soo weerareen Puntland magaalada Boosaaso qabsadeen foolxumay kala tageen 2016 bay waxay qabsadeen magaalada Garaacad ayna ay soo degeen iyaguna foolxumay kala tageen buuraha gobolka Sanaag ee Calmadow ayay soo galeen wax uga hirgelay ma jirin maantana waxa nooyin markii Soomaalidina la kala quustay ajnabi ninka Masar ka yimi ee Falastiin ay u jirto wax yar oo kiiloomitir ah oo janno Puntland u soo doontay hadda jannada u raadiyaanu ma garan karo laakiin waxay doontaa ha ahaatee duulaankaasi waa u fashilma dadka reer Puntland ee gudaha ku nool gaar ahaan dhalinyarada oo boqolkiiba 75 ka ah percentage-ka bulshada reer Puntland guud ahaan mas'uuliyad baa saaran waliba dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha argagixisada Puntland timaada ee madax jabinta iyo duulaanka iyo inay masaajidada lagu tukan waayo meheradaha lagu canweyn waayo ujeedkoodu yahay dadka reer Puntland inay inta miida ka laayay ujeedkoodu yahay duurka intay habeenkii u hoydaan oo wax dilaan duurka uma hoyanayaan waxa ay dagayaan waa guryahayaga waxa dhalinyarada looga baahan yahay waliba mas'uuliyadda gabdhaha baa sii saarana iyo waalidiinta oo iyagu xaafadaha ka warqaba qof walba gurigaaga cidda kula degan ama marti idin ku timaada ama si kale idin ku soo gasha il gaara waa ina kula hata shaqadu waa barbarkay ka baxda oo bakeela qaleen waxa loo baahan yahay laamaha boolisku hay'adaha sirdoonku
dhammaantood heegan waxay u yihiin sidii u kalluumaysan lahaayeen waddankana gacan bira uga qaban lahayn argagixisada iyo wixii la halmaala mas-uuliyad baa saaran dhallinyarada jaamacadda ee halkan caawa fadhida waxaa ku jira wasiirkii amniga ee biri madaxweynihii biri baa ku jira madaxweyne ku-xigeenkii biri baa ku jira xildhibaankii biri baa ku jira haddiina maantay amniga ka shaqayn idinkoo dhallinyaradii ardadii reer puntland ah biri waxaad raggaa saraakiisha ama madaxda ee wasaaradaha amniga iyo xildhibaanada ah iyo saraakiisha halkaa jooga aad ka dhaxashaan oo aad kala wareegtaan u imaan maysaan waddan la qabsadaad u imaanaysaan waxaa loo baahan yahay si wada jira oo dhammaystiran qof walba waa idman yahay wuxuu u idman yahay gacanta dawladda buu u idman yahay in uu waxa uu arko ee cadow ah ama summad argagixiso leh inuu laamaha amniga markiiba ku dhufto waxaa maqraati ka tihiin hadda markii howlgalku bilowday boosaaso dad shacabaa soo qabanayay dad ay ka shakiyeen marka dadku ayagaa laga rabaa dawladdu waxa ma qaban kardha dadka la'aantiis dadku ayagaa sirdoonka koowaad ee dawladda leedahay waa dadka booliska koowaad ee dawladda leedahayna waa dadka weliba dhallinyarada qof walba guri buu ka soo toosaa qof walba oo idinkeed ka mid ah waxaa ku xiran 500 200 kun qof oo asxaab iyo caailaha baa ku xiran mid walba fariinta halkaa ka qaado gurigaagii jaamacadaadii iskuulkaagii asxaabtaadii kula laabo muhiimaddu waxa weeye inaanu cidda khatar amniga ku ah dhulkayaga iyo deegaankayaga inaanu gacan bir ku qabanno war ma waxaan rabnaa inaan u ekaanno koonfurta Soomaaliya waxa ka jiray falxumada ka jirta ma rabno gabdhaha iyagu annagu waxaan rabnaa sidii Sanbaloojo uu sheegay gabdhaha reer Puntland waa ka qurux badan yihiin biiro gabdhaha tiibaan rabaa anugu inay sii jirto ma raba gabar reer Puntland inay oydo ma raba gabar reer Puntland in asay loo saaro ma raba gabar reer Puntland in lagu xadgudbo cunug xun oo qaanjeerlo meel daran reer muskool laga keenay inuu ku amar taagnay ma dhacayso si taas ay u dhicin annagu wixii gacanta noo soo gelisaan si fiican baan uga shaqaysanaynaa laakiin idinku xogta iyo xuuraanka haleeda ka helo shacabow kulankan waxaa xigi doona kulankan caawa waa bilowgiisii waa ololaha wacyigelinta khatarta argagixisada Puntland jaamacadaha baanu caawa ku bilowna dugsiyada sare xigi doona xaafadaha degmada Garowe ka kooban tahay xigi doona ururada dhalinyarada iyo ururada haweenka xigi doona ma ahan kulan aanu caawa kaliya waxaanu kale ku kormeeri doonaa dhammaan 42 degmo ee ka kooban tahay Puntland waxaanu rajayn doonaa annagoo ku duulayna wasaaradda amniga ee dawladda Puntland oo iyadu arintan wakiil dalka uga ah amniga dalka inaanu si siman baadiye iyo gudaba inaanu u gaarsiino ololaha khatarta argagixisada ee Puntland guul iyo gobonnimaan idin rajaynayaa wixii aan khalday عمل شيطان الله كيلو وحي أن وناجينا ربي من أنس بينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.